بسم الله الرحمن الرحيم ولا الكسو دبو كانال كسعودال بلشو برنامج كني هدي أكو عجبي لاك شير يسبسكرابك وحقينا فكر كيغانا وإنو مهم إنو غريب كومنتيغا سياد إنو ديري جريسيد saqajaanada gacmahooda isticmaala ayaa qaarkood gacantooda isticmaalana biyihii iska keeneen istimnaa baa la yiraahdaa waa mamnuuc caafimaadkana way u daran yihiin adu kayfiyaday doontaba biyuhu ha ku yimaadaan caada sirriya bay yiraahdaan dumarkuna way iska keenaan ragguna way iska keenaan waana shay nolosha u daran caafimaadkana u daran in biyaha maxaan ku raad dariiqadii saxda ay dariiqa aan ahayn la iskaga keeno dhowr cudur baa ka dhasha cudurro waaweyn baa ka dhasha rag iyo dumarkaba kuwii aad u isticmaala bahashaas oo waxay yiraahdaan cilmiyan maadadan soo baxaysa laba maado qaaliya baa ku jira vitamin A iyo calcium labada maada ku jira biyaha rag iyo dumarka ka soo baxa vitamin A gu wuxuu aad u caawiyaa indhaha iyo fahmada iyo xasuusta calciumtuna waxay u caawisaa dhismaha lafaha ayay caawisaa marka ruuxu hadduu dariiqadii loogu talagalay dariiqo aan ahayn uu iskaga keeno wuu indha dareeyaa lafihiisuna si sahlan bay u jabi karaan awoodda wadnihiisuna way hoos bay u dhacdaayo socodka ma kari karo in masaafo yar ma lugayn karo xasuustuna hoos bay u dhacdaa fahmada shayguna wuu ku yaraadaa hadduu qofku isticmaalo caada sirriya rag iyo dumarku doonaba ha ahaadee marka kayfiyaday doonaanba ha uga yimaadaan maniduye haddii wiil iyo gabadh midkuu doonaba biyuhu ay ka yimaadaan walow galmabayay kaga imanne hadday hurdo xataa kaga yimaadaan waxaa looga baahan yahay inuu maydho ta saddexaad alxayd gabadha hadday xayddo markuu xaydku ka dhammaado si awooddeedii tagtay iyo jidhkeedii furfurmay ee awooddu ay ka tagtay ay isu soo kabaan macdan baa ku jirta biyaheennan ilaahay uu geliyey oo mar allaaliya marka caadadu ay ka go'do hadday dumarku maydhaan waxaa u soo noqda enerjigii iyo tabartii ka tagtay oo dhan ayaa dib ilaahay ugu soo celiya waana ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay u leeyahay maalan ninku hadduu ooridiisa u galmoodo oo uu doono mar labaad inuu dib ugu laabto waa inuu maydhaa si nashaad hor leh uu u helo oo jidhkiisa macdantii ka baxday ilaahay ugu soo celiyo waayo biyahanu waxa weeye nolosha bini aadmiga wajacalnaa min almaayi kulla shayin xayin waxay leeyihiin biyuhu awood yani dheeraad ah oo ay jidhka firfircooni horle u geliyaan marka gabadhu markay xayddo markuu xaydku ka dhammaado inay maydhataa waajiba wannifaasu haddii gabadha dhiiggii dhalmadu ka yimaado intay carruur dhasho ama ay dhicisay deedna dhiiggii uu ka yimaado markuu dhiiggaasi ka go'o inay maydhataa ku waajiba walwilaadatu tashanaad haweentu hadday dhasho oo dhiigba aanu ka iman ilmo qallalan baa ka soo dhacay oo bilaa dhiiga dhalmada ay dhashay ilmaha ayaa waajibinaya inay maydhato ka lixaad almowtu hadduu qofkii muslimka ahaa dhinto isaga waajib kuma ahane ciddii markaa joogta ayay waajib ku noqonaysaa inay u maydhaan lixdaa masalo ayaa cinda shariica waajib ay tahay in qofka bini aadmiga loo maydho hadduu meyd yahay ama uu maydho haddii uu yahay maxaan ku dhaha xilo saamad